dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan war wixii adduunweynaha caawa naga soo gaadhay oo aad si toos ah Amsterdam ugala socotaan FM-ta 99.4 MHz barta internetkana aad kala socotaan dalmar.org. madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki ayaa sheegay budhcadbadeed ka qowleysata badaha dalka Soomaaliya ay halis weyn ku hayaan mandiqada geeska Afrika, ganacsiga caalamka iyo ammaanka badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeedba. madaxweyne Kibaki oo ka hadlay furitaankii shirweyne markiisii saddexaad la qabtay oo lagaga hadlayo xiisadaha ka aloosan dalalka ku yaala harooyinka waaweyn, kaasi oo shalay ka furmay caasimadda dalka Zambia ee Lusaka. madaxweynaha Kenya Kibaki ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay gacan ka geystaan sidii xal loogu heli lahaa dagaalada ka socda dalka Soomaaliya, kuwaasi oo uu sheegay in ay xidhiidh la leeyihiin mashaakilka budhcadbadeedu ay ka wadaan badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed. waxaanu tilmaamay in ay xaaladda ammaan darrada ah ee ka jirta dalka Soomaaliya ay sababtay khatarta ay budhcadbadeedu ku hayaan ganacsiga caalamka iyo ammaanka geeska Afrika iyo badweynta Hindiyaba. madaxweynihii hore ee dalka Pakistan Pervez Musharraf oo dhowr biloodba jooga dalka Britain ayaa laga yaabaa in maxkamad la soo taago haddii uu dalkiisa ku laabmo. booliiska Islamabad ayaa dhawaanta bilaabay baaritaano iyo dacwado ka dhan ah Generaal Musharraf oo lagu eedeynayo in uu si toos ah amar u bixiyay lagu soo qabqabtay tobaneeyo qareen ama looyaro sanadkii 2007 waqtigaas oo uu ahaa madaxweynaha dalka Pakistan. maxkamadda sare ee Pakistan ayaa hore qaraar ay qaadatay ku sheegtay in aanay madaxweyne Musharraf dambigaas ku soo oogeyn, hase yeeshee baarlamanku ay awood u leeyihiin in ay mar kale maxkamad hor keenaan haddii loo baahdo Pervez Musharraf. warbixin qoraal ah oo ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadamaha u dooda ee caalamiga ah Amnesty International oo xarunteeda dhexe ay ku taalo caasimadda London ee dalka Britain ayaa ka digtay baaq uu Mareykanku dhawaanta sheegay in uu hub iyo taageero military uu ku siinayo dowladda ku meelgaadhka Soomaaliya. afhayeen u hadlay Amnesty International ayaa daboolka ka qaaday in ay xaaladda Soomaaliya sii xumaan doonto haddii Washington ay xaqiijin weydo in aanu hubkaasi shakhsiyaad gooni ah u gacan galayn. Amnesty ayaa intaas ku dartay in la sameeyo guddi caalami ah oo soo baadha xadgudubyada ka baxsan bani'aadanimada ee sida isdaba joogga ah uga sii soconaya Soomaaliya si maxkamad loo hor keeno ciddii lagu helo dambiyo ka dhan ah aadamaha. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dhawaanta ay sii kordhinayso taageero military ee ay siin doonto dowladda ku meelgaadhka ee Soomaaliya. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Hillary Clinton ayaa bishan 6deedii u xaqiijisay madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed in la siinayo taageero military oo dheeraad ah si nabadda Soomaaliya wax looga qabto. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa lagu wadaa maanta inuu bilad sharafiyo uu ugu talo dad la sheegay in ay hawlo wanaagsan ama kaalin wax ku ool leh ka qabteen bulshada rayidka ah. biladahaas oo lagu magacaabo Medals of Freedom, kuwaas oo inta badan la guddoonsiiyo dadka hawlo wanaagsan bulshada Mareykanka u qabtay. waxaa kaloo biladahaas loogu talaa aqoon-yahanada, ciyaartooyda iyo fanaaniinta adduunka. Medal of Freedom oo ah bilad sharaf weyn oo madaxweynayaasha Mareykanku bixiyaan ayaa markii ugu horeysay uu bixiyay 1965 madaxweyne Truman oo ahaa madaxweynihii markaas haystay dalka Mareykanka. waxaanu siiyey biladaas dad la sheegay in ay dagaalkii labaad ee adduunka sidii loo soo afjari lahaa ka qayb qaateen. biladan oo uu bixiyo madaxweynaha Mareykanku dadka hore loo siiyey waxaa ka mid ah Senator Edward Kennedy oo ay walaalo ahaayeen madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka John F. Kennedy, baadiriga caanka ah ee South Africa Desmond Tutu, iyo Maxamed Yunis oo hore u qaatay jaa'isadda nabadda ee adduunka, iyo mid ka mid ah aktorada madowga ah ee dalka Mareykanka Sidney Poitier.
madaxweyne obama ayaa maanta isna ugu toli doona bilad sharafta xurriyadda shakhsiyaad la soo xulay oo bulshaweynta wax u qabtay ama kaalin wanaagsan oo wax ku ool leh ka qaatay nolosha. booliiska gobolka waqooyi ee dalkan Holland iyo Amsterdam ayaa sheegay in ay heleen midi loo adeegsaday haweeney toddobaadkan horaantiisii maalintii Isniinta lagu dilay meelaha carruurta yaryar lagu hayo ee kreeshyada loo yaqaano. Arzu Erbas haweeneyda la dilay ayaa la sheegay in ay lahayd dhowr meelood oo lagu hayo carruurta aad u yaryar. booliiska Amsterdam qaybteeda galbeed ayaa intaas ku daray in ay heleen 2 qof oo markhaatiyo ah kuna dhowaa goobta markii haweeneyda lagu dilay meel aan ka fogeyn parkinka iskuulka mid ka mid ah iskuuladeeda. waxaanu booliisku ku niyadsan yahay in ay arkeen nin la sheegay in uu baxsaday kadib markii uu maamulaha kreeshka halkaas ku dilay. ilaa iyo hadda ayaan la ogeyn sababta loo dilay Arzu Erbas oo ay waalidiinta carruurta kreeshka Moederschoot iyo shaqaalaheeduba sheegeen inay ahayd qof aad carruurta iyo bulshada ugu jajaban uguna wanaagsan. mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Amsterdam ayaa ugu baaqay waalidada iyo shaqaalaha in ay albaabada loo laabayo xanaanada carruurta si ku meel gaadhana meelo kale loo geynayo ilaa iyo inta ay baaritaanadu socdaan. Arzu Erbas oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Turkiga ayaa dhowaanta loo qaadi doonaa laguna aasi doonaa dalka Turkiga. wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in ay xalay magaaladaasi dhinaceeda waqooyi lagu laayay 7 nin oo u dhashay dalka Pakistan kana tirsanaa wadaadada dadka wacdiya ee tabliiqa loo yaqaano. wadaadadaas oo la sheegay in lagala baxay masaajid ay ku jireen. culimada tabliiqa ah ee xalay lagu weeraray magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo waramayaa in laga dilay 7 ka mid ah culimadaas iyadoo la sheegayo in ay wadaadadaasi marka hore dhammaayeen ilaa 10 wadaad oo isugu jira Soomaali iyo Bakistaaniyiinba. wadaadadan la laayay ayaa dhammaantood u dhashay dalka Pakistan waxaana lagala baxay masjid Tawfiiq oo ah masaajid ay culimadaasi tabliiqa loo yaqaan ay isugu yimaadaan kuna yaala magaalada Gaalkacyo. dhacdadan ayaa ahayd tii ugu horeysay ee noocan oo kale ah oo ka dhacda magaalada Gaalkacyo waxaanay ku soo beegantay xilli magaaladaasi amnigeedu aad u kacsan yahay. waxaana sidoo kale halkaasi dhowaanta lagu dilay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Puntland. hay-adaha samafalka ee qaramada midoobay ayaa digniin ka bixiyey in shacabka Soomaaliyeed hadda ay la soo darseen abaarihii ugu darnaa oo ay weli sii soconayaan dagaalada hubaysan ee ka taagan magaalada Muqdisho. waxaanay ugu baaqeen wadannada deeqda bixiya in wax ay ka qabtaan xaaladda bini'aadanimada ee ka sii daraysa gudaha dalka Soomaaliya. xafiiska isku dubaridka howlaha bani'aadanimada ee qaramada midoobay ee magaciisa loo soo gaabiyo OJA ayaa sheegay in dalka Soomaaliya hadda uu marayo heerkii ugu hooseeyey uguna darnaa tan iyo markii ay bilaabmeen dagaalada sokeeye 1991. haweeney ka tirsan xafiiska isku dubaridka howlaha bani'aadanimada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in imika loo baahan yahay kaalmooyin degdeg ah si wax looga qabto xaaladda ba'an ee ka taagan gudaha Soomaaliya. ku dhowaad 1,300,000 oo qof oo Soomaali ah ayaa hoy la'aan noqday kadib markii guryahooda ay uga barakaceen dagaalo qaraadh oo ka taagan gudaha waddankooda. waxaana haweeneydaasi ka tirsan xafiiska howlaha bani'aadanimo ee qaramada midoobay ay sheegtay in xaaladda bani'aadanimada ee ka jirta Soomaaliya ay ka sii darayso tan iyo wixii ka dambeeyey bishii May ee la soo dhaafay. dadka rayidka ah ayaa u gacan galay kuna dhex dhintay dagaalada u dhaxeeya dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo jabhadaha Islaamiyiinta hubaysan ee ka dagaalamaya magaalada madaxda Muqdisho iyo dhammaan koonfurta Soomaaliya. halkaad warkaa ka dhagaysanaysaana waa Amsterdam hoygii Soomaalida Holland Radio Dalmar ood ka dhagaysataan FM-ta 99.4 MHz. warkaygii caawana dhagaystayaal intaas ayuu inoogu dhan yahay.